Ardayga dhigta dugsiga sare ee Kenya ayaa ka aqoon badan ardayga ka soo qalin jabiyay jaamacadda waddanka Soomaaliya amaba jaamacad ku taala magaalada Muqdisho. Fikraddaasi ma aaminsan tahay? Haa mise may? Haddii aad aaminsan tahay, barnaamijkan ayaan ku lafaguri doonaa. Haddaad ku cusub tahay, subscribe noo saar, noona share garay. Ardayda dhigata dugsiyada sare ee Kenya ayay bulshada Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay ka aqoon badan tahay ardayda jaamacadaha Soomaaliya ka baxda. Taasi ma sax ba mise waa qalad? Runtii annagu kama hadlayno luqad ee waxaan ka hadlaynaa cilmi. Cilmigu ma ahan luqadda. Waxaa macquul ah ardayda dhigata dugsiyada sare ee Kenya inay luqad ahaan ka wanaagsan yihiin ardayda Soomaaliya wax ku baratay. Sababtu waxay tahay sida aan anagu ka warqabno, Kenya waxaa gumaysatay Ingiriiska gumaysay Kenya. Sidaasi awgeed luqad ahaan Soomaaliya way kaga wanaagsan yihiin. Soomaaliya qayb ka mid ah waxaa gumaystay Ingiriiska, qayb ka mid ahna waxaa gumaystay Talyaaniga. Laakiin bulshada Soomaaliyeed wax saameyn ah kuma yeelan Talyaaniga. Wadamada qaarkood ee Afrika markaad fiirisay, gumaystay luqadiisay ku hadlaan. Laakiin Soomaalidu sidaa ma ahan. Sababtu waxay tahay Soomaalidu waa dad reer miyi ah, asalkooda miyi bay ka imaadeen. Marka way adag tahay marka in luqadda gumaystaha ay qabsadaan ama ay ku hadlaan. Laakiin sida Kenya iyo Hindiya oo kaleetood waa wadamada uu gumaystay Ingiriiska, waxay ku hadlaan luqadda Englishka ay ku hadlaan. Wiilka caseeyaha ah ee Kenya joogo ama Kenyaatiga ah, luqadda Englishku way u fududahay. Sababtu waxay tahay waxaa gumaystay Ingiriiska, luqaddana way u fududahay. Marka aan kala saarno cilmiga iyo luqadda, aan kala saarno. Wiilasha waddankaas wax ku bartay aqoontoodu ma hooseysaa? Jawaabtu waa maya. Sababtu waxay tahay wiilasha waddanka wax ku bartay waxay waxbarasho u aadaan waddanka dibaddiisa iyagoo master kusoo diyaarinayo amaba iyagoo kusoo diyaarinayo bachelor. Intaba jaamacadaha kaalmo sare ayay ka galaan, meelal badanna way uga soo baxaan. Marka fikradda ah ardayga Kenya wax ku bartay iyo ardayga Soomaaliya wax ku bartay aqoon ahaan waxaa sareeyo ardayga Kenya wax ku bartay, fikraddaas waxba kama jiraan. Laakiin bulshada Soomaaliyeed way aaminsan yihiin. Waalidiin badan ayaa ardaydooda ka wada xamar waxayna geysaa Kenya si ay aqoontoodu sare ugu kacdo ayaga siday aaminsan yihiin. Laakiin waxaa macquul ah in luqadiisa ay kor u kacdo, laakiin cilmigiisa kor uma kacayo. Horta waa sax, waddanka burburaa ka dhacay iyo manhajkii dalka wuu burburay, waa sax. Laakiin bahda waxbarashada ee Soomaaliya dadaal badan ayay geliyeen. 2 nidaam ayaana la dhigi jiray sida aan anagu ka warqabno. Nidaam oo ah nidaam Carabeed oo jaamacadaha Carabta ama dugsiyada Carabta laga soo guuriyay oo af Carabi ku baxa, ama nidaam Kenya iyo wadamadaas ka imaado English ku baxa. Labadaba waddanku waa laga dhigi jiray. Marka bahda waxbarashadu maadaama systemka uu burburay, dadaalo badan ayay sameeyeen. Manhaj wadamo kale ayay soo qaadi jireen, kadibna ardayda ayay bari jireen. Dadaaladaas ay sameeyeen waxay sababtay in waddanka ay ka soo baxaan arday badan ee quality-geedu uu sareeyo. Xataa marka la dhaho dhanka luqadaha iyo dhanka cilmiga, jaamacadaha adduunka arday Soomaaliyeed ayaa kaalmaha ugu horeysa ka gasha. Ardaydaasi Ingiriiska kuma baran, waxay ku barteen magaalooyinka Soomaaliya sida Muqdisho, Baydhabo, Gaalkacyo, Hargeysa. Magaalooyinkaasi ayay wax ku barteen. Marka fikradda ah ardayga dugsiga sare ee Kenya dhigta ayaa ka aqoon badan ardayga jaamacadaha Soomaaliya ka baxay.
fikraddaasi wax kama jiraan ayay u badan tahay. Haddii adiga aad aaminsan tahay in ardayda Kenya ay ka aqoon badan yihiin ardayda Soomaaliya, commentiga noogu reeb. Laakiin waxaad kala saartaa luqadda iyo waxaad kala saartaa iyo cilmiga. Waa macquul in ay luqad ahaan nooga wanaagsan yihiin. Sida aan kuu sheegayba, bulshada Kenya waxaa gumaystay Ingiriiska gumaystay, sidaas awgeed luqadda Ingiliishku way u fududahay. Kuwooda wax bartay iyo kuwooda aan wax baranin luqadda Ingiliishka si ayay ugu hadlaan. Marka luqad ahaan way nooga wanaagsan yihiin, waa sax. Luqaduna ma ahan cilmiga. Bulsho walbo afkeeda ayay wax ku barataa. Sida aan anagu ka warqabno, ardada Turkiga aado af Turki ayay wax ku bartaan. Kuwa Pakistan aadana luqadda Urduga ayay wax ku bartaan. Taasi waa wax caam ah. Marka luqadda Ingiliishku waa luqad oo keliya ma ahan cilmi gooni ah, ma ahan. Marka ummadda Soomaaliyeed laakiin way aaminsan tahay in ardayda Kenya wax ku soo baratay ay ka wanaagsan tahay ardayda Soomaaliya wax ku baratay. Soomaaliya boqolaal ayaa ka soo baxdo, quality-gooda waxbarasho uu aad u sareeyo, kana wanaagsan kuwa ka soo baxay jaamacadaha Cambridge. Sababtu waxay tahay waxaa jiro arday Soomaaliyeed ee diyaarisay buugaag caalami ah. Arday Soomaaliyeed ee waxaa jiro artikalo jaraa'idada caalamka ee runtii aadka loo yaqaano ku qorta. Marka quality-gu ardayda waddanka wax ku baratay ma hooseyso, aad iyo aad ayay u sareysaa. Qofka bini'aadamkana dadaalkiisii ayay wax walba ku xiran yihiin. Qofka meel walba uu joogo dadaalkiisii ayay ku xiran tahay inuu si fiican wax u barto iyo inuusan si fiican wax u baranin. Laakiin wax ka jira ma lahan in ardayda Kenya ay quality ahaan ay ka wanaagsan yihiin. Waalidiin badan ayaa ardaydooda Muqdisho ka wada ama magaalooyinka Soomaaliya ka wada, kadibna geeya Kenya si meesha uu wax ugu barto ama manhajkaasi uu barto. Sababta ay sidaas u yeelayaan waxay tahay waxay u maleeyaan in luqaddu ay tahay cilmiga. Luqaddu cilmigu ma ahan. Buugaag walbo, waddan walbo afkiisa ayay ugu qoran tahay cilmigiisa. Laakiin anagu maadaama manhajkeena u burburay, manhajta ay haysano waa manhaj Carabeed iyo manhaj qolooyinkan Kenyaatiga iyo ay iska leeyihiin. Marka waa sidaas. Haddaad ku cusub tahay saaxiib, subscribe saar. Halkani waa Amir Soomaali. Assalaamu calaykum.